mahadnaqaya runtii inaan oran karo cable TV intuu joogay intii challenge-ga ugu weyn inaan TV-ga qaranka wada galnay waan enjoy garayn jiray intii hore aad baan idinka horreyn laakiin intuu joogay iyo maskaxda waxaa kaloo nolonayaa wasiirkan Cusmaan isku qaarad baan ka nimid waan la socdaa isaga laftigiisu hawsha uu ka qabtay wasaaradda duulista iyo hawada waxaan hubaa horta mid weeyaanoo meeshii ku habboonayd buu yimid waa nin isaga laftigiisu har iyo habeen shaqeeya mar aan dhowr jeer ka duulayay maarta madaalka 4:00 subaxnimo ninka joogay weeye haddana fiid baan imid oo 6:00 fiidnimo isagoo madaalka joogaan ugu yimid kulley shaqadiinu halkii way ka sii socon doontaa waana soo dhaweynayaa tartankaa cusubna cable TV mid kalaan sheegayaa oo aan jecelahay runtii horena aan u sheegay intan dambe dee muddaan ku jiray saxaafadda horta saxaafadda runtii siduu nin iga horreeyey sheegay waa ciidan runtii aan darajadooda muuqan laakiin haddana aanay qarsoomayn maalin dhaweyd baan arkay gudoomiyaha maxkamadda sare ay xukuumaddu weydiisay inuu tafsiiro in ciidanka CID-du ay yeelan karaan darajo anu waxaan oran lahaa lagu daro saxaafaddana balin darajo oo janalayo waxaas ka soo baxaan intaan ku jira aad baan u enjoy gareeyaa waxa weeyaan waa wasaaradda ugu weyn wasaaradda waxtar weyn u leh maarta qaranka waxaan jecelahay runtii inaad intaa aad samaysan qayb baanu ka nahay inkastoona haddana private nahay wasaaradda waan idinla leenay kamaramaanada wariyaashiina waxaan leeyahay markaad aragtaa cable TV daha garbanina waynu wada shaqaynaa aynu isku bahbaynuna innagaa iskaga dhawa cid walba aad waan u soo dhaweynaya wasiirka wabilaahi towfiiq waayo gudoomiyaha cable TV Farxaan Xaaji Cali gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Soolja Ruto وبحر صحافة ولا بدونيه للزوجة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبدو السيري حلك لك الوريقة يا جمال المسؤولين تا يوم تشارك في صلاة الشيء كلن كان الآدم محمد يا مركز اللي بدونيها زوجة كل زوجة لا بعد موضوع على قفلة صوتش واحد ضد صحفيين صوتش واحد كشخص آخر مريت صحفيين مركا أنت بدل هكذا أنت عن شغلي هذا لو نحسب على كتير لي كل المسؤولين تحد كلك لو لقيت أنا هذا لو بدل لو نحسب بهذا كتير لسه لكن أنا متأكد ما كان هذا الدولة كله ما دام أنا بدونيها بعض الصحافة ده يفنانين ترى أنت فنانين ترى بعض الصحافة غير بكله وبك ما نقول حريم ما ساعات وزير كي هراء وزارة مددي أن شوني صوتش يوم كي هراء الورباهين تاعيبا سيف عن بالي ولا شغالين يعني صوتش هانا كنت واحد بضم بونا رقبتي مددي من شوي أما مددي مكان صوتش شوني وحكم يقولها وسميه وفنيه مددي أن ولا شغالين يعني إنه أوركا صحفيين الصومالي يعني ميزانية قرن كوجودري بتشت كي برلمان الصومالي دوان تاسيين ونسأنا واحد بضم كثر الجوكا والله أورك sidoo kale sidii imika agaasimaha bulshooyinka mar walba maadaama ku soo dhacay idaacadii lacag kana telefishinkii lacag kana soolchana mar walba alaan ku soo dhacay waxa weeye suxuf baa la xiray institution saxaafadeed baa la xiray runtii wasiirku aad iyo aad buu noogala shaqeeyay sidii uu dhibaatooyinka bahda saxaafadda ku yimaada wax noogala qaban lahaa laakiin waxaan leeyahay faan wala fari kama qorna muddadii wasiirku nala shaqeynay wax badan nagala qabtay baahiyahaasi waxaa ku lamaanaa runtii baahiyo badan runtii oo ama هكي مادان وسارده أما هكي مادان حكومة كل كتر سنة هاي كنت باهية بدن أو أنا وحدة لا يقدر باهية أو دعين مدة أساسا صوتي وديوان كشان صحفيين كوبي لواتن كيس بعد عين توسر وكسر أنا ولا شغالين هذي شان يطلعون كبيرة صحافة أيام وترينا نحكي بدنا حكومة دان وترينا كنت واحد نسكت حالة شنو حاجة صحافة يعني واحد بدل واحد قبلنا واحد بدل بانو نجلش غير واحد بدل بانو لو صورة قال حاجة حكومة دان ربطي قرارات كثير واحد بدل واحد قبطي واحد بدل ما كل مين
فرينتاس waxay u socotay u taala wasiirka cusub ee wasaaradda runtii cadaani wasiir dawlo ahaa intii hore inta wasaaradda joogaan xasaday qoladii wasaaradda oo ku wari waa balka warama wasiir cadaan waa tan loo soo bedelay maadaama wasiir hay'adda imika hawshu gacantiisa ku jirtay sida ay wax qabadkiisa wasaaraddaas runtii shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda oo rag badan ama saaxiibo ka nahay waxay sheegeen wax badan oo aan ka filanayn cadaani inuu muddadii koobneed wasaaradda duulista joogo wax ka qabto waxaan filaynaa walaagaa laga sheegayo runtii inuu wasaaraddan warfaafinta oo sida halkan fariimaha laga soo gudbiyay qaranka kaalin muhiima kaga taala inuu baahiyaha ka jira wax badan wax ka qaban doono baahiyaha ugu badan ee maanta bahda saxaafadda haysta waxa weeye xagga waxbarashada iyo aqoonta runtii ayaan darooyinka ugu waaweyn weeye qaran 25 sano jiray in aanu maanta lahayn xarun tababar oo saxaafadeed in aanu lahayn aqoon heer jaamacadeed wasiirka maadaama wasiirkii hore intuu qabtay aan sheegay wasiirkii hore ee wasaaradda waxqabadka ugu wanaagsan soo joogaana Cabdilaahi Maxamed Ducaale ahaa waxaan ka filaynaa bahdii waxbarashaduna halka way joogtaa in wasiir cadaani oo isku taxalujiyo sidii uu waxbarashada saxaafadda runtii kaalin muhiim ugu qaadan lahaa waxaan ognahay budgetka wasaaradda warfaafinta in kaalin muhiim ay kaga jirto xukuumadda ugu tala gashay in tababar laga siiyo runtii bahda saxaafadda Soomaaliland haday noqoto ta dawliga ah ee ay mas'uulka ka yihiin wasiirada xilka la kala wareegaya iyo haday tahay ta madaxa banaanba way ka qatan yihiin waxaan wasiir cadaan ka codsanaynaa maadaama sanad horaantii la kulmay budgetka tababarada saxaafadda runtii in wax badan geliyaan saxaafadda waanu ognahay soo jeedinta jirtay waxaanu qabanay tababaro gobolada Soomaaliland oo aanu ka qabanay dhibaatada ugu badan ee taala ee xukuumaduhu ka cabdaan waxa weeye saxaafadda waxay ku eedahay in aanay aqoon lahayn marka iyagu kaalintoodii ka soo bixi waayeen runtii in saxaafadda eedan ula galgasho runtii waxaan u arkaa inay tahay in ay xukuumaddu dib isugu noqoto sida ay wax badan wax uga qabatay arrimahan ay wax ka qabtaan aad iyo aad loo mahadsantahay. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.